waan idin salaamay saaxiibada ku xiran YouTube channelka xogaa xaqiiqda ku soo dhawaada fiidiyogeena cusub. saaxiibada mar kale soo dhawaada maanta barnaamijkeena waxaan uga hadli doonaa ma ka baxday boqortooyada midowday UK midowga Yurub. Ingiriiska ayaa ka baxday midowga Yurub. boqortooyada midowday waxay ka baxday midowga Yurub 31 January 2020 wixii ka dambeysay 31 January 2020 waxaa jiri doona muddo kala guur ah ilaa dhamaadka 2020 halka boqortooyada midowday iyo midowga Yurub ay ka wada xaajoodaan qorshayaal dheeri ah. xeerarka hadda jira ganacsiga safarka iyo ganacsiga ee boqortooyada midowday UK iyo Yurub waxay sii wadayaan inay hirgeliyaan muddada kala guurka ah. natiijada ayaan ahayd in 17.4 milyan oo qof ah halka wadarta guudna tahay 51.9% ay u codayeen inay ka baxaan midowga Yurub halka 16.1 milyan wadarta guudna tahay 48.1% ay codayeen inay ku sii nagaadaan degmada Dover. 40,410 qof oo halka wadarta guudna tahay 62.2% waxay codayeen inay ka baxaan halka 24,606 wadarta guudna tahay 37.8% ay codayeen inay ku sii nagaadaan midowga Yurub. dowladda boqortooyada midowday UK waxay meesha ka saartay qodobka kontonaad ee heshiiska midowga Yurub bishii Maarso 2017 kaas oo ka dhigaysa labo geedi socod ah. ugu dambeyntii UK waxay si rasmi ah uga baxdaa midowga Yurub 29 Maarso 2019 ama dhamaadka wixii waqti kordhin ama heshiis ah loogu heshiiyay. xog dheeraad ah saameynta suurtagalka ah iyo fariimaha muhiimka ah ka bixitaanka midowga Yurub waxay ku jirtaa gol wada xaajoodka adag haddana weli waxaa jira waxyaabo badan oo aan la hubin. kuwani waa fariimaha Brexit ee soo saartay